anigoo ah Cornel Lagaafe ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxa ka hortagga qaraxyada isku dabiridaha kooxaha ka hortagga qaraxyada isku xiraha militariga Soomaaliya iyo militariga kale waxaan rabaa halkan inaan kala hadlo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage taliyaha xoogga waxaan leeyahay iskuul ku laabo sababtoo ah adigoo ah CDF taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed in aad wadanka xuduudihiisa iyo garan weyso waa aqoon darri bay ku tahay saraakiisha aad tiri laas caanood iyo hadday ka qayb galaan halganka SSC xuquuqdooda ayay ku waayayaan General Odawa dalku ma aha bariire iyo inta u dhaxayso aadan yabaal marka soo kala baro geographical ka dalka Soomaaliya marka kadib baad mudan tahay in laga dhigo CDF ama aan laga dhigin taasi CDF kaan uga hadlaya taliyaha xoogga midda xigta waxaan la hadlayaa dhalinyarada daarood oo ciidanka kamid ah hadday yihiin saraakiil xigeen hadday yihiin alifley iyo dableyba inaad ku dhimataan bariire iyo aadan yabaal waxaa idinkaga qiimo badan inaad ku dhimataan laas caanood iyo goboladiina taasaa sumcadna ku helaysaan halgamayaalna aad ku tihiin marka ka baxa xuquuq baa laydinka goynayaa iyo warkaa ka baxa xuquuqdiina ilaahay baa idin hayo dadkiina idin hayo halganka SSC garab istaaga goboladiina difaaca deegaankiina difaacda ninka taliyaha xoogga oo leh sargaalka ku dhintay Maxamed Aadan haddii uu dhintay Allah ya raxma halkaan aan uga tacsiyeynaya haddii uu nool yahayna waa nool yahay taliyaha xoogga oo leh waxaan maqlay xuquuqdan ka goosanaya hadda ka hor aniga mar aan tagay Caabudwaaq uu sidaas oo kale xuquuqda iga goostay waa nimana aqoon dalka xuduudihiisa iyo cidda uu u yahay taliyaha xoogga General Odawa Yuusuf Raage dhibtaas haysata wuxuu haystaa dalkuba inuu yahay bari